بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما دمانتين بأخيار تيدا قيمها قايها هي قدرين تبادن هودا نقل حيرا ساي مدنيال يا مروين با الضاوضيال waxaan soo gaarnay hadahan oo kale waqtiyada aanu idin soo baahino war wixii naga soo gaaray gudaha dalalka inala dariska iyo dacalada adduunka intaba maanta waa maalin axada bisha August ay tahay 12 sanadka 2013 iyada oo si toos ah waafaqsan saddexda bisha Shuwaal sanadka 1434 ka taariikhda islaamka warkii oo kooban مجاهد حسن عيسى جامع وكميدا سياسيينتا reer Somaliland ayaa maanta sheegay in xukuumadda Somaliland ay la soo daahday bixinta darajooyinka ciidamada Somaliland xildhibaan Salebaan Yuusuf Cali Kore oo kamida mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland ayaa isna dhinaciisa waxa uu sheegay in xukuumadda Somaliland ay ahayd in ay ka hawlgasho ka hortaga shirka kooxda Khaatumo ay dhawaan ku qaban doonaan degmada Taleex Jaaliyada reer Somaliland ee gobolada Awdal Salal iyo Gabiley ee ku dhaqan dalka Kuwait ayaa maanta deeq lacag soo gaarsiiyay masaajid Qabiya oo ku yaala magaalada Boorama ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhintay in ka badan 100 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari lagu qarxiyay magaalada Baghdad ee dalkaasi Ciraaq dalka Maalina dadweynaha ku dhaqan dalkaasi ayaa maanta si rasmi ah ugu dareeray doorashada madaxtinimo oo halkaasi ka dhacaysa daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada habeenkan caawa warkeena ugu doorka roon imikii haatana isagoo faahfaahsan مجاهد حسن عيسى جامع وكميدا سياسيينتا magaca weyn kula dalka Somaliland ayaa maanta sheegay in xukuumadda Somaliland ay la soo daahday bixinta darajooyinka ciidamada Somaliland مجاهد حسن عيسى جامع oo maanta u waramayay qaar kamida warbaahinta dalka waxa uu sheegay in xukuumaddu ay ahayd in 3 sano ka hor ay bixiso darajooyinka ciidamada Somaliland warkan waxa inoo haya wariyahayga Faisal Maxamed Faisal FIFA oo looga qayb galay shirkaasi lagu wareysanay Mujaahid Xasan Ciise Jaamac wareysigani khaaska ee uu maanta siiyay qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha magaalada Hargeysa gudoomiyihii siyaasadeedkii Xaqsoor Mujaahid Xasan Ciise Jaamac ayaa waxa uu gooreenba ka hadlay qaybinta darajada ciidamada ee dhawaan madaxweynaha qaranka Somaliland uu qaybiyay qaar ka mid ah saraakiisha kala duwan ee ciidamada kala duwan ee qaranka isagoo ku tilmaamay in qaybintaasi tahay mid dib u soo dhacday isla markaana xukuumaddu ay ahayd in ay muddo horeba qaybiso si ciidamadu ay u helaan sharaf waana kamida hadaladii gudoomiyaha sida tan waxaan aragnaa arrin waxay ahayd runtii hadda doonayso bari hore ay ahayd xukuumadii hore ay ahayd xukuumadana inay 3 sanadood la sugto ma ahayn waxay ahayd maalintii ugu horeysay sanadkii ugu horeeyay gudihiisa inay ku dhaqaaqeen waa arrin habsaantay waa arrin baahday waa arrin Allahumma salli ala Muhammad baylah badan ay ka dhacday imikii haatana sidan ay u dhacday bilada beelkeed kasiishooda ma wadahayn laakiin cabashooyin fara badan ayaa laga helay soo gaaray oo jaraa'idka qaarkood ku aqoonsanayo wuxuuna muhiim ah wixii cabasho ee ka yimid in si cadaalad ku dhisan sidoo kalena waxa uu gudoomiye Xasan Ciise Jaamac ka hadlay wada hadaladii u socday xukuumadda iyo siyaasadeedkii Xaqsoor isagoo dhanka kalena waxba kama jiraan ku tilmaamay warar maalmihii ugu dambeeyay la dhex maray oo sheegay in ay jiraan wada hadallo dhex maraya siyaasadeedka Xaqsoor iyo xisbiga mucaaradka ee UCID dhanka kalena waxa uu gabagabadii Mujaahid Xasan Ciise Jaamac ka hadlay bilowgii asaasitaanka golaha wada tashiga ee toosinta qaranka ee ku boobeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta magaca kule saaxadda siyaasadda Somaliland isla markaana ka gudoomiyahan uu xubin ka yahay golahaasi waxaanu tilmaamay in golahaasi asaasitaankiisa uu qayb lixaad leh ka lahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID Faysal Cali Waraabe Mujaahid Xasan Ciise oo arrimahaasi ka hadlayna waxa ka mid ah hadaladiisii saata horta arrintaas aad ka hadlayso taladeeda waxa marka hore soo jeediyo waxa Faysal Cali Waraabe soo dibadda soo jeediyay
annakoo xaqsoorina waanu ku taageeray oo intaan ka tashanay rag badan oo laga midi ayaanu ku taageeray waxa weeyaan markaa taladu waxay ahayd in talo qaran la isugu yimaado oo bartalo la isugu yimaado wanaagga waddanka la wado allahuma salli calaa nabiyyina maxamed markaa rag badan oo kale ayaa sidaad sheegtay in meesha la isugu yimid ma aha markaad xubin leedahay ma aha urur la isdiiwaangelinayo la qorayo oo xubin laga noqonayo kaadh la qaadanayo maaha waxaa ku yimi oo meesha jooga oo ka qayb gala oo si joogta ah uga qayb gala niman kulmiye ah guud ahaana gabagabadii waxa uu xasan ciise jaamac u soo jeediyey shacbiga reer somalilan isku duubnaan isagoo dhanka kalena hambalyo iyo bogaadin ugu diray maalmaha farxadeed ee ciid alfidri waa faysal fifa telefishinka madaxa bannaan ee bulsha t v magaalada hargeysa xildhibaan saleebaan yuusuf cali kore oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa maanta sheegay in xukuumadda somalilan ay ahayd in ay ka hortagto shirka kooxda khaatumo ay ka abaabulayaan islamarkaana ay ku hawlo yihiin sidii ay uga qaban lahaayeen degmada Taleex waa kan mar kale wariyahayga Faysal Maxamed Faysal Fifa oo warbixintaasi inoo soo koobaya xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Kore oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland isla markaana ah xildhibaanada laga soo darto deegaanada bariga gaar ahaan deegaanka Taleex ayaa maanta ka hadlay shir la filayo in dhawaan halkaasi ay ku qabsadaan qolada Khaatumo iyagoo ku dhaqan deegaanadaasi shirkaasi oo barihii ugu dambeeyay si xoog looga dareemay deegaanadaasi isla markaana qaban qaabo xoog loogu jiray qabashadiisa ayaa waxa uu xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Kore ku tilmaamay in ay arintaasi tahay mid sharaf dhac ku ah qaranka iyo xukuumadaba isagoo xukuumadana u soo jeediyay in ay arintaasi qayb laxad ka qaadato isla markaana ka xildhibaan ahaan iyo ka shakhsi ahaanna isagoo garab taagan yahay soo bandhigitaanka xukuumaddu soo bandhigto hab nidaameedka wax looga qabanayo dhalinyarada waxaana ka mid ah hadaladiisa satan iyo deegaanadiisa inuu ka taliyo xaq u leh xukuumadda ayay tahay inay policy ka leedahay arrimaha noocaasa oo ay noo yeedho ama fikirkayaga haddii iyadu mid haysana ay noo yeedho haddaanu annagu rabno inaanu fikir curinana ay platformkii iyo qaabkii looga howlgeli lahaana samayso qaab kasta oo sahlaya in arrimaha wax la iskaga ogaadana xukuumadda ayaa xaq u leh inay facilitate karayso sidoo kalena waxa uu xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Kore u soo jeediyay dadweynaha deegaankaasi ku dhaqan in ay imaadaan miiska wada hadalka isla markaana xukuumadda wada hadal la furtaan si ay xaqooda u helaan buu yiri xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Kore isagoo arrimaha si ka hadlayna waxa ka mid ah hadaladiisii ilaa iyo 22 sanadood baa deegaankaasi tag wuxuu ku jiray xarki jiidad aan meel dhalahayn marka in ummaddu tala macnaa isugu timaado oo qaybaheeda kala duwan intay isu yimaadaan wax isweydiiyaan oo waxa runta ah iyo waxa aan laga maarmayn laga wada hadlo ayaanu soo jeedin lahaa dhamaantood oo ay gartaan in dalka iyo ummadda la wada leeyahay oo aan cid gaar ah ka talin karin ciidamadii Soomaaliland dhulkay joogaan waynu ognahay deegaamada inta hadda Soomaaliland ka madax bannaan oo aan maamulku si fiican u gaadhin tiradooda waa la ogyahay taladuna waxay ku habboon tahay in la isu yimaado oo nin kasta oo wax tirsanayaana uu goobta ka hadlo anu dhamaanta dadka deegaanka saasaan u soo jeedinayaa guud ahaan isku soo wada duubo dhawaaqani ka soo yeedhay xildhibaan Saleebaan Yuusuf Cali Kore oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto deegaankaasi Taleex isla markaana ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa imanaya iyadoo dhawaan la filayo in si rasmi ah shaaca looga qaado shirweyn ay beesha deegaankaasi ay halkaasi ku qabsan doonto waa Faysal Fifa telefishinka madaxa bannaan ee bulsha TV magaalada Hargeysa xaaji Cabdikariin Xuseen Cabdi Waraabe oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta ugu baaqay shacab weynaha reer Soomaaliland iyo qurba joogta reer Soomaalilandba in ay gacan ka geystaan xarunta dhismaha kaydka hidaha dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliland oo dhawaan laga sameyn doono magaalada Hargeysa warkan waxa inoo soo koobaya wariyahayga Cabdiraxmaan Cilmi Xirsiin xaaji Cabdikariin Xuseen oo ah gudoomiyaha gudida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta mar uu la hadlayay warbaahinta qaar oo kood waxa uu ugu baaqay bulshada reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda meel kasta ay joogaan in ay gacan ka geystaan dhismaha iyo hirgelinta xarunta loogu talagalay in lagu ururiyo hidaha iyo dhaqanka suugaanta iyo taariikhda kala gedisan ee uu dalkan leeyahay xaruntan loogu magac daray Somaliland National Library ayaa dhulka laga dhisay waxa ku deeqday
bilowday xukuumadda Somaliland. Xaaji Cabdikariin Xuseen oo baaq u jiray qurba jooga iyo guda jooga reer Somaliland ayaa waxa uu yidhi qandaalada la dhigi jiro xorriyaha la dhigi jiro harubada iyo haanta la dhigi jiro dhaqankeennii bay soo celinayaan taariikhdii bay soo celinayaan halloo dadaalo dibad iyo gudabaha loo dadaalo xukuumadda ay Somaliland ku fadhido badanaa bixiya waxaan leenahay soo caawiya halkaas soo caawiya duqri u soo caawiya gooni ahaan u soo caawiya jamac ahaan dibadda dadka jooga rag iyo dumarba ee wanaagsan ee Somaliland jamaca u soo caawiya sida oo kalena Xaaji Cabdikariin ayaa waxa uu ku baaqay xukuumadda Somaliland labada gole baarlamaan ee guurtida iyo wakiilada dawladda hoose ee magaalada Hargeysa in ay kaalinta ugu horeysa ay ka qayb qaataan xaruntan lagu ururinayo hidaha iyo dhaqanka Somaliland waxaana uu yidhi golaha baarlamaanka hadday guurti tahay iyo hadday wakiilo tahay waa inay u dadaalaan oo qarashka fudud ay wax ka bixiyaan oo dhagaxa wax ka dhigaan madaxda xukuumadda hadduu wasiirka daakhiliga yahay iyo hadduu dawladda hoose yahay maayarka iyo hadduu madaxweynayaha iyo madaxweyne ku-xigaa yahay iyo hadduu wasaaradoo dhanba yahay xukuumaddu waa inay iyadu dhagaxa dhigtaa oo iyadu dhiiri gelisaa oo waxa u horreeya bixisaa hadalkana Xaaji Cabdikariin Xuseen Cabdi ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli Somaliland aanay ka hirgashanayn xarun rasmi ah oo lagu ururiyo hidaha iyo dhaqanka suugaanta uu wadankani leeyahay. Cabdiraxmaan Ilmaxirsi, Bulsho TV, magaalada Hargeysa. jaaliyada reer Somaliland ee gobolada Awdal, Salel iyo Gabiley ayaa maanta deeq lacageed oo gaaraysa $700 waxa ay soo gaarsiiyeen masaajid qabya ah oo ku yaala magaalada Boorama iyo xarunta Kaalmo oo iyaduna ku taala isla magaalada Boorama. warkaas faahfaahintiisa waxa magaalada Boorama nooga soo diray wariyahayga Alaaba halkaas nooga soo warama Maxamed Xasan Ismaaciil Shadiyareen. deeq lacaga uu qadarkeedu dhan yahay $700 wakiilka Cabdi Yuusuf Sigad oo kamid ah qurba joogta dalka Kuwait ee gobolada Awdal, Salel, Gabiley. haddaba deeqdan ayaa waxa wakiilku gacanta uga dhiibay mas'uuliyiinta loogu talagalay ee ku sugnaa masjidka iyo xarunta agoomaha ee Kaalmo waxaana ku helinayay xiriiryaha qurba joogta iyo guda joogta gobolada Awdal, Salel, Gabiley Xaaji Cabdiqaadir Aadan Nuur. haddaba deeqdan la guddoonsiinayay masjidka la dhisay ee ku yaala xaafadda Sooman ee dhacda koonfurta Boorama ayaa waxa uu Cabdi Yuusuf Sigad kala wareegay Sheekh Cabdilaahi Boorama oo kamid ah culimada waaweyn ee magaalada Boorama oo mas'uuliyiinta gacanta ku haya dhismaha masaajidkaasi. deeqdan maanta loo dhiibay ayaa waxay ahayd $300. أنا كسر جالية الكويت قبل كعوضل وحلو صوت دقي $700 أنكور يجنيه الشيخ مسكيتك تفضل. بارو مهندقينا جالية الكويت سدا في عن أي محوها صدقة جارية ودلاليان بيتما هنا صدقنا أيضا مهم تاعي وصدقويك إن ربحوا أي ما هو له صدقة وصدقات الصعود صفقة إلى أنت شيء قاسي زيك أما مدرسة أما الجد أما ماشي صدقة جارية ولا أنت الانتفاع ينشر صدقة صعود يسويان صدقات الواحد قفل عطاي صدقويك جارية لا سبحانه وتعالى وحليه يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. maanta joognaa masaajidka qabiilada Abmuuqda oo ereyan xaafadaha la degan yahay wax masaajida ma leh. maanta masaajidkan waa qabiyo waxa maanta noo joogo walaalkan Cabdi oo marka hore waxa naga dhaxeeyo maadartay runtii urur jamciyado degan Kuwait ah badanaana runtii soo caawiya dadka dhibaataysan iyo agoomaha iyo masaajidaba maanta isaga inala jooga runtii masaajidkan insha Allah ayuu lacag doonaysiin doona waxaan jecelahay dhammaan dadka qurba joogina runtii iyaguna waxtar u yeeshaan. sidoo kale waxa uu wakiil Cabdi Yuusuf Sigad deeqdan $400 gaarsiiyay xarunta agoonta ee Kaalmo iyadoo lagu wareejiyay deeqdan ay kala wareegtay wasiir Cabdi Faarax oo kamid ah mas'uuliyiinta ugu sarsareysa xarunta agoomaha ee Kaalmo ee ku yaala gudaha magaalada Boorama. Xasan Xasan Ismaaciil Sharbiyare, Bulsho TV, magaalada Boorama.
daawadayaal qodobada kale habeenkan caawa warka aanu idinku hayno waxa kale oo kamid ah ururka dhalinyarada aqoon-yahanada Qalimaal ayaa maanta xaflad ballaaran ku soo agaasimay xarunta gobolka Hawd ee magaalada Beledweyne hoolka shirarka ayaa waxa lagu marti qaaday dadweyne boqolaal ka tiro badan kuwaasi oo laga hadlayay sidii loo horumarin lahaa aqoonta waxbarasho ee gobolka Hawd iyo dhalinyaradaasi lagu horumarin lahaa isla kadibna baahiyaha aasaasiga ayay si weyn uga hadleen ugu horeyntiina waxa ka hadlay gudoomiyaha Qalimaal Yuusuf Awno oo ka hadlay arrimahaasi hadaladiisina waxa ka iyo dhammaan bulshooyinka kale ee gobolka ka tirsan waxa runtii su'aal la iska weydiin karaa haddii ururku uu jiray muddo sanad ah muxuu qabtay ama maxaa u qabsoomay inay la kulmaan oo ay u tagaan wasiirada waxbarashada Samsam Cabdi Aadam dabeetana cid marka loo tagayo madaxa oo baahi lagala hadlayo qofku waa inuu yani khalfiyad ama background ka haysto meesha uu ka hadlayo waxay raadiyeen marka yaa wax ka socda ama wax ka diyaariyay baahiyihii waxbarashada gobolka way nala soo xiriireen waxaan markaa u samaynay oo u diyaarinay waraaq qoraal ah oo aanu ku qornay baahiyaha waxbarashada ee gobolka waraaqdii way qaadeen wasiirada ula tageen wasiiradu waxay tiri waxbaan ka qabanayaa baahiyahan waraaqdii mar labaad baa dibna loogu soo celiyay saan dib ugu soo habayno waraaqdii runtii guddi baa loo saaray guddidaas oo ka koobnayd xubno ururka Qalimaal ka tirsan iyo maamulka waxbarashada oo uu ka mid ahaa gudoomiyaha waxbarashada gobolka Maxamed Sheekh Axmed iyo gudoomiyaha waxbarashada degmada Saciid Haybe oo hadayna la jooga dadana dib baa loo habeeyay waa la diyaariyay martiqaad baa loo fidiyay wasiirada waa ogeydeen halkan ayay noogu timi halkan markay noogu timi waraaqdiina waa loo gudbiyay isla markaana waxay dhagax dhigtay iskuulkii boardingka ahaa iskuulkii yani waxa weeyaan kaawada bari iyo xafiisyadii waxbarashada gobolka ayay dhagax dhigtay marka baahiyaha uu ururku diyaariyay ayaanay arrintaa iyadii ka dhalatay waxyaabaha runtii anta daraadeed kadibna waxa halkaasi ka hadlay ururada dhalinyarada haweenka odayaasha dhaqanka iyo bulshooyinka gobolka Hawd ku dhac kadibna waxa maamulkaasi kala duwan ka hadlay xildhibaanada golaha deegaanka iyo maayarka caasimada ugu dambeyntiina waxa kamid ah hadaladiisa أنا أعطي لحد كذا ويصير عندنا يدرون شيء يقول حاجة واحد مشاريع أساس صوتها دور كذا كان تسوي لا رح تيجي أنا والله بلا بيسير واحد هو يوصل لا تساعدني أنا صوت أفتح وأخبر كذا في أنت علي لكنه حياة مريم قولوا بعدي ما هو تبيه dhinaca kale waxa aad lagu tafatiraya sidii hore lagu marin lahaa bulshada iyo jahliga loo cirib saari lahaa ee ay aqoontooda kor ugu qaadi lahaayeen waxbarasho iyo maamulka waxbarashada golaha deegaanka odayaasha dhaqanka daawadayaal halka wali warkaasi aydan kala socotaan waa xarunta telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV stuudiyiisa magaalada Hargeysa ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhintay halka tiro kale oo 100 qof gaaraysaana ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari lagu qarxiyay magaalada Baghdad ee xarunta dalkaasi Ciraaq 19 qof ayaa ku dhimatay 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen dalka Ciraaq kadib markii gaari waxyaalaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku qarxay magaalada Baghdad ee caasimada dalkaasi Ciraaq qarax ayaa ka dhacay meel ay dadka sunniga ay ku badan yihiin taasi oo keentay in dad aad u tiro badan ay ku dhintaan halkaasi si kastaba ha ahaatee qaraxan ayaa ku soo beegmaya waqti lagu jiro u dabaaldega munaasabada Ciidul Fidriga doorashada madaxtinimo ee dalka Mali ayaa maanta si rasmi ah dalkaasi uga bilaabantay dadweynaha reer Mali ayaa u diyaar garoobaya cod bixinta iyagoo oo dooranaya madaxweynaha cusub ee dalkaasi yeelanayo dadka ayaa rajeynaya in doorashadu ay ku dhamaato xasilooni iyo nabadgelyo si dalkan uu ku yaalo dhinaca galbeed ee qaaradda Afrika uu gaadho horumar
goobaha codbixinta ayaa la furay 8 subaxnimo ee saaka oo axad ah waxaanay dadweynuhu kala dooranayaan Ibrahim Babakar oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee dalkaasi iyo ninka ay iska soo horjeedaan ee Somali Sais oo hore u ahaan jiray wasiirkii maaliyadda ee dalkaasi 7 milyan oo codbixiyaal ah ayaa codkooda dhiibanaya kana qaybgalaya doorashada si ay u helaan madaxweyne cusub oo dalkaasi yeelanayo isla markaana horumar gaarsiiyo dalkooda kaalka codbixinta iyo sanduuqyada codbixinta ayaa la geeyay kamaamka qurxinta ee dalkaasi Mauritania Burkina Faso iyo Niger halkaasi oo ay ku jiraan 17,000 oo reer Maali ah labada musharax ayaa mid waliba dhankiisa waxa uu sheeganayaa inuu kalsooni buuxda ka qabo helitaanka codad ku filan iyadoo ilaa hadda Ibrahim Babakar uu helay 3.6 codkii la dhiibtay ra'iisul wasaaraha dalka Australia ayaa si rasmi ah ula kulmay Tony Abbott oo ah hogaamiyaha xisbiga dhaqaalaha ee dalkaasi iyada oo ay labada dhinac ka wada hadleen doorashada madaxtinimo ee dalkaasi ra'iisul wasaaraha dalka Australia Keith Rodi ayaa wuxuu si toos ah ula kulmay Tony Abbott oo ah hogaamiyaha xisbiga dhaqaalaha dalkaasi wada hadaladan oo ah kii ugu horeeyay ayaa lagaga wada hadlayaa sidii loo dardargelin lahaa ololaha doorashada ee dalkaasi Mr Rodi ayaa la wareegay hogaaminta xisbiga shaqaalaha ee dalkaasi bishii June labada mas'uul ayaa ka shaqeynaya sidii doorashada loo qaban doono ay u noqon lahayd mid si fiican u dhacda isla markaana aan wax dhibaato ah ka iman akhyaarteeda qiimaha qaayaha iyo qadarinta badan ee hawada nagala xiriirasay mudanayaal iyo marweynba daawadayaal intaasi waxay noogu eeg war wixii naga soo gaaray gudaha dalalka inala dariska iyo daclada adduunka intaba waxaad ku maasantiin qadarka waqtigiina ayduna siiseen inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doono inta ka horeysa aniga iyo akhyaarta kale ee igala qayb qaadatayba waxaan idinkaga teganaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh